aad u heer sarreyso oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqani dalkani Jarmalka ee lagu magacaabo Puntland Diaspora Forum ayaa lagu qabtay magaalada Bonn ee gobolka North Festival ee dalkani Jarmalka. xafladaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu soo bandhigay alaabaha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo waliba dad ku labisnaa iyagoo calanka Soomaaliya iyo waliba calanka Puntland. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee dalkani Jarmalka Maxamed Cabdiraxmaan waxaana hadaladiisa waxyaalahan qabanay ilaa iyo sanadka waxa ugu weynaa munaasabadii ama sanad guuradii 13aad ee asaaska Puntland ka soo wareegatay waanu ku qabanay magaalada Heidelberg. talaabada labaad waa ururku qaaday waxa ama aan leeyahay waa ugu weyn tahay waxyaalihii ururku qabtay waxa weeye inaanu 16 gobol ama 16 state ee Jarmalku ka kooban yahay aanu isku daynay inaanu ogaano isbarano dadka jaaliyadda kamid ah ee ku nool inaanu samayno xog ururin ama tirakoob. marka laga reebo soo bandhigitaanka astaamaha dhaqanka oo ah dadka Soomaaliyeed ayaa xafladaasi waliba waxaa lagu soo bandhigay heesaha wadaniga iyo waliba heesa lagu amaanayo Puntland oo ay kamid tahay heesa la yiraahdo Puntland ku dayo. waxaana fanaaniintii halka joogtay kamid ahaa Cabdinuur Xamar iyo waliba Hodan Cumar Dhuule. Mustafa Xaaji Aadan, telefishinka caalamiga Cable TV, Jarmalka.